بدلان إن بدن سومالينا هاي بيوغوب على ودا إشي هقامي بدلان إن بدن عدادا فري هنانكا سبيادا هرسيداي عداهي ميلادا لهايو عدن بادا بايسي بليان كنيريه هقامي بدلان إن بدن سومالينا هاي بيوغوب على ودا هشي هقامي بدلان إن بدن تنيو إن بدن هقامي بدلان عدادا فري هنانكا سبيادا هرسيداي عداهي ميلادا لهايو بادا بايسي بليان كنيريه هقامي بدلان إن بدن سومالينا هاي بيوغوب على ودا هشي هقامي بدلان runtii waxay maanta noo tahay maalin farxadeed waxaa si gaara sharaf weyn iigu ah inaan soo booqdo magaalada Saaxo degmada Saaxo oo runtii ah degmooyinka ka mid ah degmooyinka Puntland kormeerkii aan ku bixinaynay gobolka Mudug inaan soo gaarno maanta waan uga mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha Saaxo sida diiran ay noogu soo dhaweeyeen inta aan joogno waxaan rajaynaynaa inaan kulamo la yeelano inaan mashaariicda horumarineed ee laga qabtay aan daahfurno inaan baahiyaha kale ee degmada aan ogaano dawladdiinu waa inii dhowdahay waxay jeceshahay mar walba wixii karaankeeda ah inay u qabato bulshadan runtii dadka Puntland waxay qaateen mabda ah inay isku tashadaan inay dadkooda u adeegaan inay danahooda ka shaqeeyaan in ay nabadooda iyo horumarkooda ay sugaan sidoo kale tan inay danaha Soomaaliyeed ay kaalin ka geystaan kaalinta kaga aadan waxaan rajaynayaa magaaladan horumarka ka muuqda iyo bilicda ka muuqata waa isku tashiga dadka reer Puntland ay isku tashadeen dadka reer Puntland deegaan kasta iyo degmo kasta ay joogaan dawladooda iyo shacabka deegaankaas degan iyagoo iskaashanaya iyo deeq bixiyaasha runtii mar walba Soomaaliya la garab taagan horumarka ayay waxay jecel yihiin ummadooda inuu adeegaan waxyaabaha baahiyaha asaasiga ee bulshada u baahan tahay hadba wixii laga gaaranayo in la qabto laakiin asaaska ugu muhiimsan oo Puntland ay xoog saaraysa waxa waaye nabadda iyo deganaanshaha iyo wada noolaanshaha dadka reer Puntland iyo dadka kale ee dariska la ah waxaan u baahannahay nabadeena inaan adkaysanno waxaan u baahannahay midnimadeena inaan adkaysanno waxaan u baahannahay isku duubni inaan u wajahno caqabadaha faraha badan ee duruufaha marxaladaha la marayo ay keeneen sidaan uga gudbi lahayn Saaxo runtii waa magaalo muhiim u ah halbowlo u ah nabadda iyo xasiloonida iyo deganaanshaha Puntland waxaan rajaynayaa in ay bulshada Soomaaliyeed dhammaan iyo bulshada reer Puntland ba ay ka soo kabtaan sanado badan oo duruufo amni iyo duruufo khilaaf iyo dagaalo sokeeyay ay aad u jireen waxaan aad ugu rajo weynahay in arrimahaas aan ku bedelno horumar deganaansho iyo barwaaqo ilaahay idinkiis annagoo kaashanayna awoodda rabbi iyo awoodeennaba aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen waan ku faraxsanahay inaan maanta idinla joogno waxaan rajaynaynaa mashaariicdii halka laga furay aan ka furno saldhigga booliisku ugu muhiimsan yahay iyo dhismayaasha kaleeto
waxaan rajaynaynaa maxkamaddii iyo booliiskii inuu si fiican u shaqeeyo maamulka degmada inay si fiican u shaqayso dadka bulshada reer Saaxo waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan maamulka dawladda golaha deegaanka degmada booliiska maxkamadaha idinkay inay adeegayaan haddaydan gacan wanaagsan inaga helin way adkaanaysaa inay sidii ay rabeen u shaqeeyaan waxaan uga duwannahay Soomaali inteeda kale Puntland waxay uga duwan tahay waa nabad jacayl iyo maamul jacayl marka dawladnimada inaad adkaysaan baan laga rabaa kaalinta inagu aadanna inaad ka qaadataan annaguna insha Allah mar walba maamulka degmada iyo qaybaha kale dawladda ee u matalaya degmada iyagoo shaqadooda gudanaya ayay haddana dawladda dhexe il gaar ah ku hay doontaa magaalada Saaxo horumarkeeda iyo wanaageeda